waan islaamay Soomaali weyn. Waxaan rabaa inaan si kooban dawadan la yidhaahdo minoxidil oo ah dawo timaha dib bixitaankooda dib u samaysa. Ayaan rabaa si kooban inaan qodobo yaroo fudud aan si degdega aan igu sheego. Macluumaad siyaada ah oo faahfaahsanna videoga hoose ee YouTube-ka ayaa daawan kartaan. Laakiin waxaan jeclaaday Soomaali ahaan inaan si degdega igu sheego qodobo kooban oo laakiin inta aad u baahan tahay inaad ku ogaato dawadan timaha bixisa aan rabaa inaan ii sheego. Horta kow, timo hadda inay daataan bilaabmay ayay dawadan anfacaysaa. Timo bidaartu mar hore gashay oo lagu kala tegay oo dhakacad ay noqotay, ma aaminsin wax ka qabanayso. Laakiin timo hadda qofku markuu 30 iyo wax gaaro ay timaha uu ka daadaataan ama shaawarka uu timo ka arko ama gogashi uu ka kacay uu timo ka arko oo aad dareento inay hadda timahaagii ay daadasho bilaabeen, markaasay ku anfacaysaa. Ama xagga dhakada timihii ku yaallaan laakiin caddaan aad arkaysid, markaasay ku anfacaysaa. waa qodobka koowaad. Qodobka labaad, wasaaradda caafimaadka ee Maraykanka ee USDS loo yaqaano ayaa xaqiijin ku samaysay dawadan inay timaha bixiso. Yani waa dawo Maraykana, ma aha dawooyinka dadku kambaniyaashu intay sameeyaan ay iska sheegaan say rabaan dhahaan waxay rabaan iska dhahaan ma. Waa dawo ma garanaysaaye Maraykanka, wasaaraddii Maraykanka ay hubsatay. Si horta marka hore bakhtiyaar nasiibina dawadan waa lagu ogaaday oo waxaa lagu daweyn jiray ayadoo la cuno. Iminka waa la marsanayaa, timaha la marsanaya, laakiin waxaa lagu daweyn jiray dadka dhiigkarka uu hayo. Laakiin dhakhtaradu waxay arkeen inay dadkiina marka dawadan la siiyo timihii ay usoo baxayaan. Saasaa lagu ogaaday almuhiim sanado ka hor. Laakiin hadda ahaan kambanigan wuxuu u sameeyey inaad timaha oo keliyata loo isticmaalo. Wasaaraddiina way ku raacday, way u abruuf gareeyeen, way u xaqiijiyeen. Ma abruuf garaysa ama ma xaqiijiso wasaaraddu wax aanan la hubin, waayo way ka awood sareysaa kambaniyaasha oo dhan. wixii been ay ka reebtaa dadka. taa waa taa. Maraykanka 5% boqolkiiba 5 dawada markay ku jirto liquorkan ama dawadu markay ku dhex jirto saailkan, dowladaha Canada iyo Yurub, dhakhtarka skinka ama dermatologist la yidhaahdo, dhakhtarka jildiga ama maqaarka, waa inuu kuu soo qoraa. Taasi Soomaalida uma suurta galayso. Qof waxa weeyaan Africa ama Soomaaliya, Hargeysa ama Muqdisho ama meel kasta ama Borough meeshu joogo ma suurta galayso. Laakiin nasiib wanaag, Maraykanka boqolkiiba 5 oo ah inta uu dawada inay ku jirto la rabo si ay usoo saarto timaha, boqolkiiba 5 Maraykanku kaama rabo inaad dhakhtarkii warqad ka soo qorto ama prescription waxa la yidhaahdo, oo warqadda uu kusoo qorayo dhakhtarka uma baahni, oo online baad ka iibsan kartaa. taas waay markaa aan u samaynayba. Horta sababa u weyn aan nooriyo u samayna waxay ahayd Soomaalidu inay ka dalban karaan dawooyinka iyo waxyaalada ay waddanka ka helaynin, inaan adduunka ama Shiinaha ha noqoto ama Maraykan ha noqoto aan u fududeyno, oo markaa qofkii hadda markuu ka dalbado nuuriyo annagana aan u dalbano Hargeysa iyo Muqdisho iyo meeshuu joogaba Soomaaliya aan ugu geyno. fahant. Qodobka saddexaad waxa weeyaan marka qofku marsanayo, fadlan waxaa muhiim ah inuu meeshii loogu talagalay oo ah timaha meeshii ka daadanaya, ama xagga dhakada dambe ha noqoto ama xaggan hore saalaxyada ha noqoto ama inta madaxa dusha oo dhan ha noqoto, qofku meesha un inuu mariyo. Hadday meelaha kale kaa taabtaabsato, hadday wejigaaga kaa taabsato, hadday dhegaha kaa taabsato, hadday laabta kaaga daadato, dhulkaabaa laga yaabaa inay timo kaaga soo baxaan. taasi waa inaan loo fiirsado. Marka meeshii loogu talagalay hadhow toole inaadan meel qalada ayna timo kaa soo bixin, madaxaaga uun ku ekeysi. Ta kale qodobka kale waxa weeyaan raba inaan sheego oo muhiim ah, 2 toddobaad ilaa 3 toddobaad ee ugu horeeya ee aad dawadan isticmaalaysid, waxaa laga yaabaa timo badan oo daadanaya oo sidii hore ka badan inaad aragto. Haddaba ha gadanin haddaadan fahansanayn taa. dhakhtar kasta oo uu kuu sheegaya toddobaadka ama 2 toddobaad ee ugu horeysa, waayo timihii intii
qalashay ama faa'iido aan lahayn ayay bahashu markaa seerkal cusub bay gelinaysaa. Se u shaqaysana waxa weeyaan dhiigga ayay ku furaysaa unugyada madaxa hadda ma garanaysaa waxay yidhahdaan way seexdeen unuggii buu seexday waqti bay leeyihiin timuhu waa sida geedka oo kale gubaa jira yani way isbedelaan ma fahantay so marka toddobaadka ugu horeeya ilaa toddobaadka saddexaad waxaa laga yaabaa inay timo kaa daadanayo siyaada aad aragtid laakiin ballanqaadku waxa weeyaan oo la hubaa in marka dambe timo ay hadday toole si joogtaa usoo baxayaan qodobka kale waxa weeyaan aan raba inaad si fiican u fahantaan subaxiina waa la marsanayaa oo waa la isku dhimcinaya 2 goor habeenkiina waa la isku dhimcinayaa waa inaad taana aad diyaar u tahay waa shaqo joogta ah waana subaxiina isku dhimcisaa waana habeenkiina isku dhimcisaa ta kale timahaaga oo qalalan ayaa la rabaa inaad isticmaasho ta ugu fiicanna waxa weeyaan dhakhtaradu say imika yidhahdeen waa inaad marka hore horta soo qubaysataa timahaaga soo nadiifisaa timihii aad shukumaan ama tuwaal aad ku qalagisaa oo markaad qalagisid markaa ayada aad marsataa timihiioo qoyina lama rabo timihiioo aad u qalalana lama rabo qodobka kale su-aal noqon karta garka ma loo isticmaali karaayo qofku gar ma u soo bixinaysaa ha haddaad garka marsato oo de meeshii loogu talagalay garka meelay timaha kaa maqan yihiin aad si nidaama u mariso yes garna wuu kugu soo bixin karaa timaha garka ee wejiga wuu kugu soo bixin karaa ta kale waa intaa weyn intaasaan rabaa inaan si degdega nigu sheego qodobadaa markaa saa u fahantay annaga nuuri ahaan iyo haddaad youtube meel kasta ka eegtana dawadan waa dawo si run ah oo shaqaynaysa annaguna original wey waxa aan kuu soo gadayno oo aan kuu keenno meesha aad ka joogtid soomaaliya ama soo adigu magaalada joogtidbaba haddii aad macluumaad kale u baahan tahay videoga kale hoose balbalaaran si faahfaahsan waad ka heli kartaa macluumaad laakiin waxaan jeclaaday inaan nii soo koobo waa dawada waa si fiican ba u shaqaynaysaa laakiin ta kalen raba inaan ku daro joogto weeyaan yani iminka ahaan 3 dhalo weeyaan oo dhaladiiba bil kugu filan tahay 3 bilood bay tani ku haynaysaa wax bil kasta aad dalbanaysa markaa ma filan 3 bilood bay ku haynaysaa markaa 2 bilood aad isticmaashay bil ku hadhay haddana waad dalbanaysaa 3 kalan kuu soo diraynaa saasaad ku wadaysaa ma fahantay ilaa iyo inta dee ma garanaysaa adu aad rabtid laakiin 6 bilood 3 bilood sanad 2 sano timahaagii waxay meelihii timaha ka gogo-een dhakada ay soo muuqanaysay saalaxay ku soo gelayeen way hagaajinaysaa waan islaam